iskuulkan noo qadamteen oo quruxda badan kuraastaan aysan qololkiiba qaadi karin biraad noo qotomiseen oo baaxadda leh hay-adii noo qabatay qayr baan u filahaynaa. iskuulka hoose dhexe ee deegaanka xaarxaar oo xariga laga jaray munaasabad si heersare loo soo agaasimay oo xariga looga jaray iskuulka waxaa ka qayb galay isimo maamulka degmada Buurtine waxgarad kala duwan iyo bahda waxbarashada degmada. dhismaha iskuulka xaarxaar oo si casri ah loo dhisay ayaa waxaa fuliyay hay'adda Amsor. ugu horeyntii waxaa ka hadlay wakiilka hay'adda Amsor Mudane Xuseen Axmed Cabdille waxa uu ka warbixiyay dhismaha iskuulka isagoona sheegay inay dhisayaan dugsi sare oo casri ah. American Somali Relief Agency runtii boorkaas aad wada akhrisanaysan bay leedahay waa hay'ad wax badan runtii ka qabatay ilaa iyo 2012kiina wax badan ka soo qabatay deegaamada Soomaaliya iyo Puntland waxa kale oo ay qabatay runtii abaartii sima aad garanaysaan oo aad u mataqaanaa deegaanada Soomaaliya oo dhan dhibaatada weyn u geystay qayb leh waxa ka qaadatay Amsor inay u diyaarinayso high schoolkii ama secondarygi insha Allah ta'ala ay rajaynayso waxaan filayaa ardayga ugu sareeya markan waa 7 ardayga 7 dhiganaya markuu takharujo oo 8 ka baxo waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala sida qorshaha u degan hay'adda inuu galo isku secondary xaar ku yaala. sidoo kale injineer Cabdixamiid Jaamac Usmaan Dr. Sadeeq Cabdirasaaq Saadiye Maxamed Jaamac maamulaha isbitaalka xaarxaar ayaa si wada jir ah uga hadlay xafladda xariga looga jaray iskuulkaasi. Amsor iyo dad kale oo muxsiniina oo isu tagay ilaahay fadligiis waxa lagu guuleystay in intaan hadda lagu daro deyrkii la dhameystiro 4 fasal oo cusub oo standard ah aan oran karno lagu daro. waxaan leeyahay hadii ilaahay raali ka noqdo hooyooyinka reer xaarxaar waxaa laga rabaa iskuulkaas oo wax badan loo maray hay'adda Amsor iyo bahweynta muxsiniinta ummadaas idin xarbisay sidii ardaydiina ilmihiina ay horumar u gaari lahaayeen inay si iskuulkaas ee reer xaarxaar soo la hooya wax barto wiil iyo gabarba inuu hooyo u xarbiso hadii ilaahay raali ka noqdo. anigu waxaan ka mid ahay ardaydii muddo 4 sano ay ka bixinaysay jaamacadda sanadihii 2014 ilaa 2018kii way ku mahadsan yihiin. dhanka kale waxaa iyaguna xafladda ka hadlay maamulaha cusub ee iskuulka xaarxaar Cabdirashiid Maxamuud Faarax iyo gudoomiyaha waxbarashada degmada Buurtine Yaasiin Cabdirasaaq Jaamac. waxaa loo baahan yahay sida hadda la sheegay macallimiintii solarkii habeenkii dadku wax ku baran lahaa sidoo kale waxa loo baahan yahay meeshan waa deegaan waana deegaan weyn oo balaaran wuxuu u baahan yahay mar haddii dugsiga hoose dhexe la helay in uu helo secondary. anoo ku hadlaya magacayga iyo magaca wasaaradda waxbarashada waxaan marka hore iyo mar labaad iyo mar saddexaadba inagu mahadcelinaynaa hadaatiin reer xaarxaar waxa horumarka weyn oo ku tilaabsateen inkoo kaashanaya waxa way Amsor iyo muxsiniinta reer xaarxaar ka soo jeeda iskoolkii oo aad balaariseen oo aad ka dhigteen waxa weeye aad ku dareen 4 qol. Xiritaanka xafladan ayaa waxaa si wada jir ah uga hadlay Ugaas Cumar Geelle Maxamed oo kamid ah ismada Soomaaliyeed iyo gudoomiyaha degmada Buurtine Sayid Maxamuud Xirsi. maalintii markii ay ii sheegeen arintoo aan hawshan dhagax dhigaynay hal cod si baan anigu u jeedsaday ugu horeeyay. codsigaasi wuxuu ahaa tabarta aad noo wadaan wax kastaba ha ahaato waxaanu idinka codsanaynaa inaad iskuulka noo weynaysaan deyrkiisa mustaqbal baanu leenahay oo ummadan baanu nahay. way fuliyeen waliba aanu inta runtii waa ka sii jeclaa waxaan jeclaa inuu garoon leeyahay in haddii la rabo qaybta secondary-gana hadhow gudaha laga dhisi karo. inta kadib waxaan si qoto dheer ugu mahadcelinayaa hay'adda Amsor iyo dhammaan muxsiniintii dhistay iskuulkan quruxda badan oo sharafta leh oo runtii ka duwan xataa iskuulada degmada Buurtine ka dhisan kana qurux badan. waxaan kaloo u mahadcelinayaa cid walba oo talo iyo tabar iyo dhiirigelin ku bixisay. Mawlid Maxamed Kooshin warbaahinta SBC degmada Buurtine.